labaatanki bishii sideedaad magaalada Ceergaabo waxaanu ku qabanaynaa tartan ka mid ah orodada dhaadheer ama orodada dhexe runtii oo ah 10 kilomitir. hadda ka hor waxaanu qabanay orado badan runtii tartanka waxa gacan naga siiyay hay'adda DDG. aad baan ugu mahad celinaynaa dhalinyaradaasi waxay tababar qaadanayeen muddo sanad iyo badh ah. waxaanu qabanay orado badan waxa ugu horeeyay markii ugu horeysay aanu qabanay 5 kilomitir orodyahanadii ka soo baxay. haddana maydh waxaanu ugu qabanay 400 mitir sidoo kale Ceergaabo 800 mitir. tartankii ugu dambeeyay aanu qabanayna 1500 mitir buu maantana waxaanu qabanay tartan 10 kilomitir ah. taasina waxay ka mid tahay dardargelinta aanu ugu jirno tartamada dhawaanta ka dhici doona isreebreebada ka dhici doona Hargeysa iyo Burco iyo Boorame. inkastoo aan ka xunnahay inaan orodadii lagu soo darin isreebreebka hore oo marka dambe kooxaha soo baxa ay tartankana ka qayb gali doonaan. runtii taa waan ka xunnahay laakiin waxaanu ku rajo qabnaa kubaddeeda cagtuna inay soo saari doonto orodadayada annagoo aan u ducaynaynaa. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga maxamed cabdi aadan cadami tababara ciyaaraha fudud qoladaas tagan maani sidii sidoo soo sheegaan saadalka soo daabinaya waa orodka 10 kilomitir. waxaan ku rajaynayaa inay rikoor fiican keenaan kii horena rikoor fiican bay keeneen. bismillaahir rahmaanir rahiim. anoo ka hadlay afka tababaraha ciyaaraha fudud ama orodada sidii gudoomiyaha ku sheegay Master Cadami ama isuduwaha dhantay ciyaaro tartankan aan maanta qabanayno waa tartankii abad ugu horeeyay ee 10 kilomitir laga hirgeliyo magaalada Ceergaabo ama gobolka Sanaag oo dhan. aadna waxa nooga caawinay oo aan sidii isuduwaha sheegay aad ugu mahad celinaynaa hay'adda DDG. aad baa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi. halkan galabta waxaanu ku qabanaynaa bisha August 22keeda orodka 10 kilomitir. waxaanu ku rajaynaynaa inaan gobolada qaadi doono caan bayna ku tahay Ceergaabo orada ciyaaraha fudud. aad iyo aad waxaanu ugu rajaynaynaa inaanu qaadi doono haddii alla yiri. mahadle marka hore ilaaha weyn waaxid ka inuu qabsamo orodkani. magacaygu Cabdiqani Maxamed Cabdi oo ka magac dheer Faraska Cad. aad baan ugu faraxsanahay in tartanka maanta nala qabto hay'addu noo qabato. insha Allah waxaan leenahay bulshada reer Sanaag inaan khayr bayn isku ognahay sanadkan gobolada dadaal inaan koobka gobolada keeno gobolka ayaan ku rajaynahay insha Allah. magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Jaamac. aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta tartanka ka qayb qaato anoo kuwa horena aad uga soo qayb qaatay. waxaan guul baan ka rajaynayaa tartankana gobolkana waxaan doonaynaa inaanu kaalmo fiican iyo bilado fiican aan u soo hayno. anigoo ku magac dheer Maxamed Rashiid Maxamuud ama Rashiidba waxaan la ka salaamayaa macnaha gudida qaabisay maanta orodada. waxaan rajaynayaa inaan guul gaadhno. الرحمن الرحيم. أنا ومحمد عبد العثمان أيرو وحنا ديارنا هنا نكلا قيب قادنا كوسارة عفوا هان وسارة عيارها لأن أوردنا قبناش ونوحي فيرس أيدا يوحي سبورت فما يكون معطاها بكل سيم يوحي لمدة أنا تقطع غيره. والسلام عليكم ورحمة الله.
tahay 22 bisha 8aad magaalada Ceergaabo waxaan noogu qabsoomay tartan orodada dhexa tartankaas oo ka koobnaa 10 kilomitir runtii tartanka waxa ku guuleystay kaalinta koowaad ku guuleystay Kaysad Dacar Ismaaciil oo rikoorkiisu ahaa 85 kaalinta labaad waxa ku guuleystay Ismaaciil Cabdullaahi Ismaaciil Alloore oo rikoorkiisu ahaa 76 kaalinta saddexaad waxa ku guuleystay Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed Farange oo rikoorkiisu ahaa 76 kaalinta afraad waxa ku guuleystay Cabdiqani Maxamed Cabdi Aadan oo rikoorkiisu ahaa 77 runtii tartanka waxa gacan naga siisay hay'adda DDG aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adda DDG run ahaantii caawa halkan casho sharaf loogu sameeyay orodyahanadii ka qayb qaatay tartanka iyo guddidii qabanqaabinaysay waxa ugu waaweynaa محمد حوكسدي محمد عبد آدم عظمي مصطفى محمد جبلو توبرها أحمد ريرمي بروفيسور أحمد محمد أحمد ورنتي سجون نجا عاوني يسكت بريتك أيرو وسجون هاك عافيماتك رنتي هذا اللي ديشنا أدبانهم هاد علنيا سبورتس كان أدبانهم هاد علنيا وحي موتشين كرتي وتاسوحي نوس رجل نساء أرض السومال لنا ريكورد في عنك كأنه هذه أدبان هاد سنتهاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan halkan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa ordiyahanada saaxiibada ee ilo ordayay oo aan iyana u hambalyeeyo maadaama ay yihiin jiilka u soo kacay gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo aan leeyahay saaxiibayaal guuleysta dareenkaygu aad buu kacsan yahay lama qiyaasi karo waayo waxaan ku faraxsanahay ordiyahano noocan oo kale oo soo baxay oo bedeli doona ordiyahanadii hore gobolka Sanaag oo xilligii sagaashanadii ama 80nadii ordi jiray anigu magacaygu waa Ismaaciil Cabdullaahi Ismaaciil maanta tartanka 10 kilomitir ka galay kaalinta labaad aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa waxaan salaamayaa isduwaha gobolka Sanaag iyo kooxda kale ee orodadaba saaxiibadayda qaaliga aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay hambalyo aad baan ugu faraxsanahay orodka nala qabtay 10 kilomitir waxaan rajaynayaa insha Allah orodkan wuxuu ahaa kooxdayada gudaheeda laakiin saan gobolka guul ugu soo hoylahayn baan ku rajaynaa insha Allah wana falgalkeedii baan ku jiraa wana dadaalana insha Allah hadii la yiraahdo kooxda gobolka Sanaaga aad baan ugu faraxsanahay tartanka maanta dhacay inamada kaalmaha horeeya ka galnaa ugu hambalyeynaa waana guulay kooxdu gaadhay insha Allah shacabkayagana waxaan leenahay ciyaaraha gobolada inaan ugu soo dadaalayno oo orodka 100 mitir 10 kilomitir aan soo qaadi doono insha Allah anaga ballan qaadayna halkan adagna waan ugu jirnaa tababar adag sidaanu aan gobolka horumarkiisa aan u soo guulo ugu soo hoynayn insha Allah idinkuna ducada noo badiya